Assalaamu calaykum. Mowduuceenan maanta waxa uu ka hadlayaa farqiga u dhexeeya maamule iyo hogaamiye. Inta badan waxaa laga yaabaa inay dhalinyarteenu ku fikirayaan ama mid walba uu jecel yahay inuu noqdo qof wax maamula. Waxaa laga yaabaa inaad maqasho qof dhalinyaro ah oo leh waxaan rabaa inaan shirkad weyn maamulo ka noqdo, waxaan rabaa in aan shirkad aan anigu leeyahay maamulo. Balse waxaa jira farqi u dhexeeya qofka hogaamiyaha ah iyo qofka maamulaha ah. Inagu markii la yiraahdo hogaamiye waxaa inta badan u fahnaa in laga wado qof oo dowlad maamula, balse ma moodno hogaamiyuhu inuu yahay macne intaas ka badan ama intaas ka weyn. Culimada Human Development Science-ka ama tanmiya albashariya cilmiga la yiraahdo oo bani'aadamka korintiisa markay mowduucan ka hadlayaan waxay sheegaan in uu jiro kala duwanaansho aad u weyn oo u dhexeeya maamule iyo hogaamiye. Haddaba muxuu yahay farqiga u dhexeeya maamule iyo hogaamiye? Ma isku mid ba mise waa ay kala duwan yihiin? Inta aanan mowduucaas gelin waxaan kaa codsan lahaa in aad page-ka like-ta tuujisid, sidoo kalena aad follow-da soo raacisid si wixii faa'iido leh oon meesha soo gelino uu ku soo gaadho oo aan isoogu soo share garayno. Sidoo kale waxaan kaa codsanaynaa in aad ku sii share garayso asxaabtaada si uu u sii gaadho wixii wanaag ah iyo faa'iido ah ee wada wadaagno. Waad mahadsan tahay. Maamule markii la yiraahdo, maamuluhu waa qof maamula shaqo loo dhiibay iyo goob shaqo oo loo dhiibay aan idhaahdee iyo shaqo iyo shaqaale intaas ayuu maamulaa. Maamuluhu awood uma leh in uu shaqo cusub meesha ku soo biiriyo, shaqaale cusub ku soo biiriyo. Taas isaga mid uu awood u leeyahay ma aha. Sidoo kale maamuluhu haddii ay dhibaato ku dhacdo, matalan waxaa jira waxyaabo loo qoro oo la yiraahdo haddii problemkaasi dhaco ama dhibaatada noocaasi ay dhacdo, waxaa jirta waxyaabo la siiyo la yiraahdo dhibaatadaas hadday dhacdo saasaa la samayn doonaa oo lasii qiyaasa calashaan. Marka maamulaha haddii dhibaata ku dhacdo oo uu dareemo in dhibaato jirto ama problem cusub uu ka hor yimaado, awood uma leh in isagu maskaxdiisa iyo go'aan isagu leeyahay inuu ku xalliyo ilaa uu kala hadlo qofkii maamulayay ama uu hoos tagayay. Sidoo kale dhanka kale haddaan u dhigno, qofka hoggaanka ahi waa qof awood u leh, waa qof maamulaha goobta shaqada iyo shaqaalahaba. Wuxuu awood u leeyahay in uu aroortuu yimaadaba shaqo cusub oo anfici karaysa goobtaas shaqo in uu ku soo biiriyo, taas awood u leeyahay. Shaqaale inuu keeno awood u leeyahay. Qofka hogaamiyihii waa qof geesi ah, waa qof awood u leh in uu wax ka beddelo goobtiisa. Waa qof dadka dhiirrigeliya oo ku dhiirrigeliya inay wax cusub sameeyaan, inay horumar sameeyaan. Waa qof dadka kala afkaar duwan isu keena, isu soo dhoweeya. Waxaa ku tusaale ah Genghis Khan ninkii la odhan jiray oo qabiilkii Mongolian-ka ahaa ee kala jajabsanaa, ee kala tagsanaa, ee iswada laynayay, isku wada geeyay, ugu dambeynna ku soo duulay dunidaas dhan wada dumiyay. Saas darteed qofka hogaamiye waa qof geesi ah, waa qof go'aan leh, waa qof sabir leh, waa qof dhibaatada timaada isaga nafsad ahaantiisa xallinaya oo cid ka sarreysa oo uu uga baqaya ama uga dambeysa aysan jirin. Sidaas darteed labada eray farqi weyn ayaa u dhexeeya. Qofku meesha shirkadda uu leeyahay waxaan idhahnaa maamule ayuu ka yahay, maamule kama ah, waa hogaamiye. Maamuluhu waa qofka uu kaga tegay ee shirkadda u sii wada, kaas ayaa manager ah, maamule u ah, balse isagu waa hogaamiye. Marka farqiga u dhexeeyay waa taas, labadooda farqiga u dhexeeyay waa taas. Mudane waxaan mar labaad kaa codsan lahaa si wixii faa'iido leh aan isu soo gaarsiino oon isula wadaagno in aad page-ka like-ta noo saarto, follow-dana aad soo raaciso, share-tana aad ku darto si asxaabtaada ay u sii gaadho. Waad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum.